adaa hanka iyo qalbiga dhex hurdee halkeen dhigaya hablaha kale adaa hanka iyo qalbiga dhex hurdee halkeen dhigaya hablaha kale السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هابون داوديال meel kasta dafaa caalamka iyo dunida baad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena halkaas qaybtiisa bandhigga bulshada taasi oo aanu maanta bulshada reer Burco kula wadaagi doono kelmadda xabiibi waxa ay isticmaalaan iyo waxa ay tahay daawasho wanaagsan walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya marka hore ku soo dhaw barnaamijkaas magacaygu walaal waxa weeye Xuseen Cabdi Axmed Xuseenow aad bad mahadsantahay walaal su'aal baan jeclaynaa ku weydiiyo ساشو حبيبي كلمة حبيبي محي رير برعو استعمالان محي سنة قنيسة كلمة حبيبي هير برعو هاي استعمالان حبيبي حبيبي استعمالان ولا البيو يقن انت اساسا مقنا انا مركز هو عربي ولا ها يقول لك محي استعمالان يقول حبيبي يقن قفك لبد قف يستعل sidoo kale ay yaqaanaan xabiibti bay ku dhahaan waad mahadsantahay walaal Xuseen insaad arkaysaan bayimka waxaan la taaganahay korneel ciltiro oo kamid ah korneelada gobolka Togdheer marka hore aad igu soo dhaw barnaamijka halkaas qaybtiisa bandhigga bulshada waa ku dhawaad bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantahay waxaan jeclahay inaad iyadoo kala fatisho kelmaddan xabiibi waxay tahay iyo waxay Soomaalidu u isticmaasho wada kelmadda xabiibi la yiraahdo xabiibi idmiinus waa jacayl waa kelmad carabi ah af Soomaali markii la eegana waa jacayl يا حبيبي سوماليدنا وعف استعماشها وحبي وكله كمثل حب الحب جعلكم وي ها مركا كو جعله امي عربي اهان اصل كذا محي نقنيس عربي اهان هو جعل ها ادن ما سنتاي كورنال علتري اديغا مدن هيا نيمكا waxaan la fadhiyaa mid kamid ah safiinta gobolka Togdheer magacaaga magacaygu waa Shaafic Cabdirsaaq Jaamac Shiinow walaal waxaan jeclahay inaad kala fasasho laba kelmadood kelmaddan xabiibi waxay asal ahaan tahay iyo waxay reer Burco isticmaalaan niw kelmaddan xabiibi horto asal ahaanteedu waa kelmad carabi ah waa walaal laakiin reer Burco isticmaalaan xabiibi qofka jecel yahay xabiibi ku raadaan laakiin qofka xabiibi kuma raadaan saas ma u fahmay walaal jamaa sax aad bad ma soo imika waxa garabkayga taagan Axmed Ali Axmed oo ku soo dhaw barnaamijka kiis qaybtiisa bandhigga bulshada ugu dhaw walaal Axmed walaal waxaan jeclahay inaad bal ii kala istafisho kelmaddan xabiibi waxay tahay iyo waxay reer Burco isticmaalaan kelmaddan xabiibi markeeda hore waa carabi wana walaal reer Burco horta xabiibi hadad ku taahid qofka oo aydan awlidi ka dhaxaynin waxa laga yaabaa inaad kala kulanto xaalad kale oo ay ku caayaanba laakiin sida runtii ah kelmadda xabiibi waa walaal sometimes waxa dhacday in dadka maarta xiriir kale ay isu isticmaalaan iyagoo ay ugu jirto booska gacaliye oo kale ama gacal soo kale ay ku jirto magaraas marka waxaan oran lahaa xabiibi ka boodina oo walaal ku soo dhawaada aad waasata imika waxa garabkayga taagan محمد حسن oo ku soo dhaw barnaamijka qaybtiisa bandhigga bulshada waan dhaway walaal maxamed waxaan jeclahay inaad kala tafasho walaal kelmaddan xabiibi waxay caadi ahaanteeda tahay iyo waxay reer Burco isticmaalaan sababtoo walaal kelmadda caadi ahaanteeda waxa way xabiibi waa walaal samaad garan wana kelmad carabi ah laakiin reer Burco xabiib waxay warkayeen jacayl hada ku tiraa dad ba jacayl ku xanaaqay oo xabiib ku tiraa samaad garan mar ma laba ma inaan badan walaal xabiib ku horeysa saamani bad ku horeysa xabiib waa ku xanaaqan ku dagaalan ku dhawaanaya aad nasta imika waxaan la taagnahay mid kamid ah dhalinyarada magaciisu yahay Nuuruddin Axmed Nuuruddin ku soo dhaw barnaamijka qaybtiisa bandhigga bulshada walaal in badan ma ku dhawaynaa su'aal baan jeclahay Nuuruddin inaad laba eray kala micnayso kelmaddan xabiibi waxay tahay waa la isla garanayaa waa carabi sida Soomaalidu talo maxay u isticmaashaa niyo hawda kale nafta jacayl kelmadda ka wada xabiibina kale xubbi umbi ka timi waa xubbatak marka sida loo isticmaalana waa jacaylkii un jacaylkii baa dhowr laakiin ka cashaqeenu isticmaalnaa
carabiduna wixii balbalaadhsayo jacayl walba u isticmaashaa kii walaalnimo iyo kii ilaah iyo wixii u isticmaal markaa waa caadi taa kelmadda jeceshay naftunba waxaan jecelo aad badan iminka waxaan la taagnay cabdifatax axmed baa magacayga la yihahdaa waxaan reer burcaa kusoo dhaweynay barnaamijka maasha allah aad baad mahadsantahay cabdifatax waxaan ku weydiin lahaa kelmaddan xabiib waxay soomaalidu u isticmaashaa gaar ahaan reer burco iyo waxay asal ahaantee tahay asliyan haddaan isku dayo kelmaddaas waxa weeyaan xabiib waa kelmad oo jir ahaan carabiya marka wax weeyaan walaaban bay u dhigataa Soomaali ahaan laakiin reer burco ama Soomaalida waxay u isticmaashaa halkii waxay gashay kelmaddan gacal iyo ama gacal soo kale oo jacayl ahaan qofka xiriirka la wadaagayo ee kelmadda loo adeegsada saasaan maasantay cabdifatax waxaan la taagnahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Mahad Faarax waxaan ahay gudoomiyaha duurjoogta in deegaamada afka Soomaaliga lagaga hadlo waxa weeye su'aashaadii weydiisay haddii aan ka hadlo waxa weeye kelmaddan xabiibi waxay asal ahaan tahay iyo waxay Soomaalidu isticmaashaa anigu kelmadda la yiraahdo xabiibi intan u aqaanu baan ku sharaxayaa marka hore kelmaddan waa kelmad af Carabi iyo xagga ay Carabta inaga timi si fiican Carabtu kelmaddan waxay u taqaanaa walaal laakiin Soomaalidu macna kale ayay u yaqaanaan oo waxay u yaqaanaan gabadha ay jecel yihiin iyo maxaan ku yiraahdaa ayay dumarka ay jecel yihiin ayay ku yiraahdaan xabiibi marka anigu waxaan aaminsanahay labada macne ayay kelmaddan leedahay marka macna kale oo aqaana ma jirto aad baad maasantay magaca Ilyaasow ma taqaanaa waxa xabiibi reer burco isticmaalaan xabiibi حبيب بروح حد قنت حبيب حيوان دقف كتعلين تلو يضم حياتها مركز دوري يضم حياتها كلمدو كلمدو حلا كلمدو حلا عرفت حيوان أنا مو لا دابا Soomaali weyn oo dadkaniyo waxa waqaan xabiib waqaan yakna xabiib maxay noqon xabiib waxay noqonaysaa adiyad ku oran lahayd xabiib ya iyad ku oran lahayd dadkan walaalanayo ayaan ku dhalaa xabiibi aad baad tan jecel aan ku leeyahay gacaliso daawadayaashaasi waxaa ku soo dhamaaday barnaamijkeena Hakis qaybtiisa bandhiga bulshada waxaanu toddobaadkan dadweynaha magaalada Burco ku dhaqan weydiinay kelmadda xabiibi iyo sida ay u isticmaalaan bartaad naga daawanaysaana waa barteena YouTube-ka ee Hakis Burco channel barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo Jamaal Ali Xasan dhammaan babahada Hakis waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh adaa hanka iyo qalbiga dhex hurtay kan dhigaya